الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا النبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر محمد يلحو إن شاء الله تعالى وحين شريح الضنائم كتلنا أقسامكي دولة هما وسارد waxbarashadii qaaday sanadkan 2023 maadada xisaabta aqsaamadii hore sidan oo kale soo sharaxnay waxa kan hadaynu sharixi doonaa insha Allah ta'ala hooyo marka kani aqsaamku markaasta wuxuu ka mid yahay waxyaabaha adagu ku sii dhiirigelinaya imtixaanka inuu galo waayo wuxuu og yahay waxa ka horeeya iyo maadada aqsaamka sida uu dhacayo examka kan iyo kii hore iyo hadaad intaaba soo daawato waxaad ogaanaysaa ama aad macluumaad weyn ka qaadanaysaa maadada taasi examkeeda ama imtixaanka kaasi sida uu bixi doono insha Allah ta'ala walow aanan ku dhahin markasta imtixaanka kan aan sharaxayo ayaa ka soo socda taasina ma jirto balse caawinayo ku noqon doona wayahay marka maadada aan sharax doono maadada xisaabta hadaa la idin hayo imtixaanka ku koobnaan doona sida caadiga ah saddex qaybood ay ka kooban yahay section 1 oo ah multiple choice questions section 2 oo noqon doona hadii la idmayo wax lagu magacaabayo matching iyo section ka saddexaad oo ah questions oo toos ama structure questions qaybta ugu horeysa inuu ka bilaabo doonaa qaybta tan section koobaad waxa weeye multiple choice questions waa su'aalo doorasho ah saashin markaynu sharaxno jawaabteenu soo helno waxaan dooran doonaa xarafka saxda ah hadaba mid ayaan u sharixi doonaa si faahfaahsan waliba aan isleeyahay arday kasta uu fahmi doono oo sharixi doona insha Allah ta'ala marka inaad adigna si fiican aad u dadaasho isku day insha Allah waxa weeye kani waa wuxuu ku noqonayaa kaliya inaad xoogaa tusaale ka sii qaadato balse dadaalkaaga ay ku xirnaan doontaa imtixaanka maadada ama buuntada dadkiina doonto sectionka markuu ugu horeeyo waa multiple choice questions numberka koowaad waxa weeye 1 radian is equal to hal radian ama hal gacansiin ayaa wuxuu leeyahay a b c d midkood weeye markaanu soo shaqeyno ayaan ogaan doonaa 1 radian waxa uu leeyahay ugu horeyntii waxaan isla fahmaynaa inaan isla qaadanayno horta hore radian iyo degree waa la isku bedelaa sida caadiga ah markaan rabno inaan degree u bedelno radian iyo markaan rabno inaan radian u bedelno degree waxa la isticmaalayaa xeerkan ama qaacidana مثلا waxaan rabaa inaan degree inaan u bedelaan doonaya radian marka degree-gaas aan haysto oo numberka degree-ga aan haysto ayaa waxaan ku dhifanayaa by oo aan u qaybino 180 degree 180 degree soo marka bilcagsi weetan kaluna markaan haysano radian oo aan u bedelayno degree-na radian-kii aan haysanay ayaa waxaan ku dhifanaynaa 180 degree oo loo qaybiyay by soo marka maadaama hadda ay tahay 1 radian waxaan haysano hal radian ama 1 rad waxaan ku dhifanaynaa 180 degree oo loo dhigay maxay by marka 1 radkii wuxuu noqon doonaa marka 180 loo qaybiyay by 180 degree oo loo qaybiyay by imika tan baydu sidaan ognahay waa qiimo constant ay leedahay qiimo constant ay leedahay waa 3.142 something saas oo kale hadii marka loo qabiyo 180 baygaas waxa ku soo bixi doona qiimo gaar ah mesela 57.3 degree oo kale ay leedahay halkii radian balse hadda number aan la siin waxaan la siin doonaa multiple choice questions oo u qoran sida tan soo marka waxaan raadin doonaa jawaabta ama xarafka ay ku xusan tahay 180 la hoos dhigay by marka 180 la hoos dhigay by waxay ku xusan tahay baan dhigi doonaa xarafka c sidaas awgeed su'aasha saxda ah waxaan dhigi doonaa waa xarafka c marka c ayaan goobada sidaas u gulineynaa waxaan u gudbaynaa marka su'aasha xigta labaad su'aasha labaad waxa weeye su'aasha labaad sec theta oo ku dhacsan cos squared theta sec theta hadaynu ku dhifano cos squared theta waxay leegtahay baa qoran sec theta oo ku dhacsan cos squared theta waxay leegtahay markaynu furfurno ayaan soo saari doonaa ayaan dhihi doonaa intaas bay leegtahay bal aan furfurno bal ka hor intaanan halka furfurin waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo in yar oo muhiim ah inaad ogaato
identity waxaa jira lagu magacaabo reciprocal identities ama midaalada rogaalka waxa weeye kuwaasi hadaan soo qaadano waa sec angle ku sita ama gas ama pi ama wax walba iska noqday seta ama alpha ama gamma ama a ama b waxa rabto qaan kartaa angle-ka soo markaa sec theta waxay leegtahay 1/cos theta cosec theta ay ina jirta ina waxay leegtahay 1/sin theta waxa sidoo kale jira wax lagu magacaabayo cot theta ina waxay leegtahay 1/tan theta 1/tan theta haddii halkaasi square la saaro mesela sec square theta lirado ama sec square theta si lamida coska iyo sinka iyo tangentiga hooseyaasha ayna square baa raacay doono square bed functionka hore sidii uu yahay ku xirantay marka sec theta halkeedii waxaan ku bedelan karnaa 1/cos theta marka waxaan leenahay hal la hoos dhigay cos theta oo ku dhacsanta ama times iska qoro ama dhibic qoro waxa ku dhacs markaasi waa cos squared theta soo marka coska hoose hal bay wataa coska marka waxaan ku dhifanaynaa halka sare cosagana coska hoose waxaan ku dhifanaynaa halka hoose marka cos squared theta oo kor ka soo bixi doonta iyo hoose ka soo bixi doonto cos theta inta marka waxay leegtaan leenahay cos squared theta san ognahay waa cos theta oo ku dhacsan cos theta macnaha cos theta oo ku dhacsan cos theta ayaa waxay leegtahay cos squared theta hoosna marka waxa inoo yaalo cos theta marka cos theta oo sare iyo cos theta hoose isla saar marka ugu dambeyn waxa ku soo baxay jawaabta inay tahay kaliya cos theta marka jawaabtaas oo cos theta ayaynu baarayna hadii alla idmahay soo marka su'aasha cos theta waa xarafka a ayaynu markaas koob gelinayna waxaan leenahay su'aasha saxda ah waa a soo a is the right answer halka goob geli waxaan gudbaynaa marka su'aasha xigta waxa weeye su'aasha taxadiidna simplification of radical 50 to the lowest form markii la fududeeyo ama fududeynta xid laba jibaar oo tirada 50 ku jirto ama tirada 50 hadii laga saaro xid laba jibaar toos uga baxaysa laakiin wala fududeyn karaa hadii loo qoro markaas oo santa ugu fudud ayaa jawaabtu waxay tahay a iyo b qaybtan c iyo d halkaas ay jiraan sax c iyo d marka a iyo b iyo c iyo d soo marka intaas jawaabta saxda ah aynu dooran doonaa bal aynu soo fududeyno marka waxaan leeyahay doonaa u fiirso waxaan dhihi doonaa waxaan isna cos 30 soma waa radical 50 aan dhahay waxaan isna conton on ka saarayna ama ku jirto square root waxaan ognahay in contonka loo qori karo 25 lagu dhiftay 2 square root ka saar soo marka 25 ka laftirkeeda waxa loo qori karaa 5 lagu dhiftay 5 square root ku jirto waxaan ku dhifanaynaa 2 na square root baan galeynaa square root macnaha maadaama dadkooda dhaxeeyay goyn uga saarayna soo marka 5 ku dhifan 5 waa 5 laba jibaaran oo laga saaray square root waxaan ku dhifanaynaa radical 2 oo ina square root ku jirto soo marka square ka ay ka isla saar waxa soo baxaya 5 ku dhacsan radical 2 jawaabta saxda marka waa 5 oo lagu dhiftay radical 2 jawaabtaas aynu fiirinayna jawaabtaasi iyana waa a waa su'aasha ugu horeysa waa xarafka ugu horeeya oo a soo marka ayanu goobadaas gelinayna waaye waxaan ugu gudbaynaa marka su'aasha saddexaad ibsad 1 hadii sad 1 ama complex number ka matrada ka kani koobaad ay tahay 5 minus 3i sad 2 ay tahay -9 plus -9 i then sad 1 plus sad 2 hadii la isku daro waxa soo baxay waaye waxa soo baxay inuu dambeeyay horta aynu qorano sad 1 waa 5 minus 3i sad 1 waxaan fiirinaynaa sad 1 waxaan haysanaa 5 minus 3i sad 2 na waxaan haysanaa -9 i soo marka waxaan haysanaa labadaas complex number hadii marka sad 1 iyo sad 2 la isku daro ayaa jawaabta soo baxda waxay leegtahay la yiri abcd da oo halkaas aan ku xulan doono jawaabta aan heli doono aynu diyaarsanayna haddaba waxa la soo sad 2 markii la isku daro waxay leegtahay leeyahay doonaa 5 minus 3i oo ku lagu darabaynu dhigi doonaa
minus 9 minus I. So marka imaginary partiga real partiga gooni isku xiji intaas waxay leegtahay leena 5 waa real partiga minus 9 waa real partiga qaybta labaad ee complex numberka labaad lagu daray baynu leenahay minus 3I waa imaginary partiga reset numberka ama complex numberka koobaad oo laga jaray minus I oo ah complex numberka labaad waya qaybta complex numberka labaad ee imaginary partiga marka hadii 5 iyo minus 9 la kala jaro waxa soo baxaya minus 4 minus 3I iyo minus I na waxa soo baxaya minus 4I waayo balaaskaas hore ku dhacsan haduu ku dhaco minuska minuskiisa uu ahaanay waxba kama bedelay soo jawaabta saxda waxa weeye waa minus 4 waa minus 4 minus 4I minus 4 minus 4I marka minus 4 minus 4I waa xarafka C soo marka xarafka C ayaynu goobo gelinayna waa xarafka C minus 4 minus 4I way waxaan rajeynaa fahamtay insha Allah taala waxaan ugu gudbaynaa su'aasha numberka xiga numberka shanaad the average of a given set of numbers العلسكا urur tirooyin urur lagu siiyay ayaa isna soo xaqaana waxa weeye hadii tiro lagu siiyo mesela data ama xog ba lagu siiyay xogtaasi ururkaasi average kaad marka soo raadiso yani erga average erga kale ee la macna ayaa jiri kare muxuu yahay lagu yiri marka soo marka ergaasi waa arithmetic mean waa arithmetic mode waa bad dacway mana ah arithmetic median ba ku xiga oo dhexfurka isna ma aha arithmetic progression oo asoosan xisaabeed isna ma aha soo marka jawaabta saxda ay waa arithmetic mean waa tiro sinki oo marka waxaan leenahay jawaabta saxda ah waa xarafkaasi D oo arithmetic mean arithmetic mode waxa noqon kara mesela waa most frequent number tirada ugu soo noqoshada badan way median kana waa tirada dhexfurka ah oo xogta markii lagu siiyo hadii group ta inaan kastoo kala shaqata inuu arki doono hadii la dhimayo arithmetic progression waa basoo xisaabeedko waa form 3 iyo form 4 kamba kuma jirto way marka waxaan gudbaynaa su'aasha xigta ee asaasi lixaad derivative of sin x hadii la xigo maxaa soo baxaya the derivative of sin x way waxaan leenahay marka u fiirso mesela waxa lagu siiyay y oo la eg maxay y oo la eg sin x waxa lagu yiri marka waxaad sheegtaa dy over dx markan waxay leegtahay waa cos x warkiyo kooban cos x ayaan kugu soo gabagabeynaya ujeedkan kale waxa weeye kani waa theorem aragti saan ognahay markasta waa la profile aragti aan la profile ma jirto laakiin aragtida tan proofkeeda inaan ka dhigo yani 10 kale oo goolin aan soo moogiye halkan kuma dhaxduubayo markaad proofayso waan ku sii sheegay waxaad adeegsanaysaa limitka aad ku isticmaali doontaa limitka aad adeegsanaysaa halkaas aad ku soo proof doontaa insha Allah soo marka cos x ayaa waxay noqonaysaa jawaabta saxda ah marka waxaan fiirinaynaa xarafka ay ku xusan tahay cos x xarafka d ayaa marka waxay inoo noqonayaa jawaabta saxda ah waa xarafka d soo cos x waka way waxaan markaan numberka todobaad baynu guri doonaa the upper class limit of third class interval markaynu fiirino classes halkan la siiyay afarta class ka kooban ayaa classka saddexaad tiradiisa kore ayaa waxa ay tahay classka koobaad waa 20 classka koobaad arkin waa 20 ila 30 classka labaadna waa 30 ila 40 sabab classka saadiga waa classka 40 ila 50 40 marka waa lower limit waa lower class limit halka 50 ya upper class limit soo marka 50 ayaa waxay noqonaysaa jawaabta saxda aslanba limits kama class limit markii la hadlayo waa labo inta lower limits ka inay tahay upper soo marka classka lagu siiyay ku xiran hadii class 2 la yiraahdo upper class limit ku 40 noqon hadii class 3 la yiraahdo laakiin upper class limit ku 50 hadii class 4 leedana waa 60 saas awgeed marka upper class limit oo inta third class waa 50 saas awgeed 50 ayayna gooba gelinayna meesha waxa ka muuqda in 50 gaba hore goob loo guliyay way warqadaha kuwani warqada iskaan lagu soo qaaday way
marka su-aashaas sidaas ay ku saxan tahay waa sidaan u gudbaynaa. marka su-aasha sideedaad ayaynu gelaynaa. sideed waxaa lagu yiri the derivative markii la xigno y equal 3x square minus 2x plus 1. jawaabta saxda maxay noqonaysaa 3x square minus 2x plus 1. waxaan haysanaa 3x square 3y equal 3x square minus 2x weeye plus 1. so markii la xigo waxaan leenahay dy over dx. dad doontana waxaa dhigi kartaa y prime oo dusha sare waxaad ka saari kartaa sumada yare prime oo kale. so marka dy over dx waxay leegtaa horta xeer baa jira. marka hore xeerka aynu soo qoran, marka xeerkaas qorana kadib ayaan ku sheegayaa. midalan waxaa lagu siiyay y equal inay leegtahay x oo ku jibaaran power n. markii y-daas la xigayo waxaa la dhihi doonaa jibaarka x-ka uu wato ayaad horey ku dhifanaysaa n bay noqon. x-ki markaad intii horey uga dhufato intiina hal baad ka jaraysaa. soo marka xeerkaas ayaan isticmaalaynaa, xeerkaas aynu adeegsanaynaa. soo marka y prime ama y derivative waxay leegtahay ama derivative of y waxay noqonaysaa hadda x-kani wuxuu wataa kor 2 buu wataa, 2daasi 3daas bay ku dhacaysaa. soo marka 6 bay noqonaysaa, 2diina waxaa ka jarmaya hal. ma fahmaysaan? minus aynu leenahay x-kani hal buu wataa, halkaasi 2da hore ku dhacaya waa 2 le x, halkiina waxaa ka jarmaya hal plus maxaan ku yiraahdaa wanka kanina wuxuu wataa waa constant number sare baa la iska qoraa. laakiin sare sababta loo qorayo waxa weeye halka ayaa wuxuu wataa tiro oo markaasi constant number ah oo jibaarkeedu yahay ever. macna x hadaan ku jibaarno misalan ever waa ever Soomaan. ever hadii halka lagu dhufto horgalaha ahi hadii ever lagu dhufto ever baa soo baxaysa. misaas tiradeed tirada constant ever baa la iska qortaa. laakiin sida caadiga tirada constantiga tiro kale oo x ama doorsoomo ayaa ku dhacsan jibaarkiisu yahay ever way. inta markaan joogno inta waxay leegtaan leenahay 6x square kii marka labadii hal baa ka jarmay 6x buu noqonayaa minus 2 hadii x-kii ku jibaarnaa hal laga jaro ever baa soo baxaysa plus ever xabad noo soo kordhimayso. inta marka waxay leegtaan leenahay 6x minus 2 sababtoo ah x ku jibaaran ever waxay leegtahay hal hadaynu hal ku dhifano labana labada baa halkaas ku soo baxaysa. soo marka jawaabta saxda waa 6x minus 2. jawaabtaas aynu fiirinaynaa way 6x minus 2 waa jawaabta xarafka b. soo marka xarafka b ayaa wuxuu noqonayaa jawaabta saxda ah. xarafkaas b aynu gabagalinaa mujeedaa waa 6x minus 2. waxaan u gudbaynaa imika tane su-aasha xigtay. waxaa la yiri 6 permutation 4 is equal to 6 permutation 4 waxay leegtahay baa la yiri maxay waxay leegtahay anaga nagala doonayna soo saar. okay waxaan marka horta xeerkii aan marka la talaabaan xeerkii permutation waxaan ogeyn inuu yahay n permutation r in lagu helayay n factorial oo loo qaybiyay n oo laga jaray r all factorial. mujeeda combination kii bay saaga dhow yihiin wax yar oo combination ka hooseeya ayaa waxa lagu silfanayay r factorial. soo marka n booskeedii waxa inoo yar 6 permutation waxaan leenahay 4 intaasi waxay leegtahay halkii n waa 6 factorial la hoos dhigay 6 oo laga jaray r oo 4 inoo ah all factorial. intaasi marka waxay leegtahay 6 factorial oo loo qaybiyay 6 laga jaray 4 waa 2 factorial. soo marka waxaan furfuraynaa 6ka ilaa aynu ka geyno tirada 2. soo waxaan leenahay marka 6 lagu dhiftay 5 lagu dhiftay maxay 4 lagu dhiftay 3 lagu dhiftay 2 markaan joogno factorial baan leenahay all divided by 2 factorial. soo marka 2 factorial sare ee 2 hoos isla saar 6 ku dhifa 5 waa 30 30 ku dhifa 4 120 120 ku dhifa 3 waa 360. soo marka jawaabta saxda waxa weeye 360. jawaabtaas aynu baaraynaa marka kan 360 sidan u jeedno waa xarafka mujeeda c way. soo marka correct answer ku waa c. soo marka c ayaan goobada saas u gelinaynaa way. waxaan ku xujinaynaa imika kani waa su'aasha tobnaad waxaa lagu yiri lim x power 4 minus 6 as x approaches 2 is equal to
معناها واحدك ترى تاني أما فانشن كان إجس كوجي بارنا فلقى جري له مركا إجس أو تو كلوانا يو أيا وحي لكته سو مركا إجس باور 4 ماينس 6 أي نسوق قاعدين إجس باور 4 ماينس 6 ليم وحنسنا ليم إجس باور 4 ماينس 6 as إجس approaches to what zero ما هني و 2 كانوا كلمة حاجة سنينا direct substitution بنستعملينها فهمت direct substitution ما دام إجس أو 2 كلوانيو waxay ladan aysan keenin daan direct isticmaalno soo marka direct waan toos u isticmaalina inta waxay leegtaan leenahay 2 ku agaski 2 ku bedel jibaar oo 4 ba saaran -6 marka laba ku jibaaran 4 waa 16 soo ma leen 2 ku dhif 2 ku dhif 2 4 way ku dhif 2 waa 8 ku dhif 2 macna 2 4 jeer isku dhif way laga jaray 6 laga jaray 6 waxa soo baxay markaasi 10 soo jawaabta saxda waxaan leenahay waa tirada 10 soo xarafka a ayaa wuxuu yahay jawaabta saxda ah maadaama ay tahay eemay nagu suntan tahay ba tirada 10 halkaas ayna ka goob gulinayna waxaan filaynaa in la fahamtay insha Allah ta'ala next waxaan gudbaynaa su'aasha xigta maxay koy tobnaad su'aasha koy tobnaad waxa the value of an integral 3x square plus 2x plus 5 integration ka markaynu joogno laba inuu qaybin jirna Soomahan midna waa finite midna waa infinite integral infinite integral iyo finite integral kana saarkina marka waa infinite integral marka wax bay meeshan ka boodeen oo waxa ka maqan halka inay bil galiyaan waxa rabay qaybta sare ee dheegas halka ay wadara soo marka dheegaskii ku dhifan lahaayeen ayaa meesha ka maqan inaga ku darsanayna waxaan haysanaa 3x square plus 2x plus 5 waxaan haysanaa maxay 3 waxaan haysanaa 3 integral leenahay 3x square plus 2x plus 5 dhamaantood dibadda waxaan ugu dhifanaynaa dx 3x square plus 2x plus 5 aan iska soo hubino 3x square plus 2x plus 5 right soo marka taasi waa sax marka u fiirso intaan ka shaqeyn ka hor horta xeerkii ama soo qornaa xeerkeenu qorin waxa lagu mesela baba xal uu siiyo u fiirso integral of x power n dx مثلا ka soo qaad xeerka hadda fiirno qaabkan uu qoran yahay xeerka kan marka muxuu ahaa waxa maadaama meesha ay tahay infinite horta jibaarka sare integration kana saan ognaayay waaba antiderivative ki aan daayay sameeynay cagsigiisi way meesha tira hore aan ku dhifanaynay oo halka ka jaraynay imika kan x-ka jibaarkiisa oo anti aan hore ku dhifanaynay kuma dhufan doono oo qaybin doona meeshan halka ka jaraynana halka ayaan ku daraynaa soo marka inta hore ku dhifo Soomahan ha inta u qaybi halna ku dar okay xeerka salaysan doonta maadaama ay tahay infinite-na waxaan ku daraynaa c sidaasna waxay u taaganaan doontaa tiradii oo constant-iga ahayd ama constant number-kii ay u taagan tahay oo haddaan dhihina halkaas waa ever soo marka maadaama tiradu mid ay tahay aqoonin laakiin tira constant oo ay tahay c ba loo qaadanaya okay marka 3x square markaynu sameeyno 3 waxbaan marka la soo qorino u fiirso toos aan u shaqeynayna 3x square ku x square buu wataa hal baynu ku daraynaa waxaan u qabeynaa hadana isla jibaarkii oo 2 plus 1 plus waxaan leenahay 2x ku jibaaran hal buu jibaarku ahay hal kale aan ku daraynaa hal lagu daray halkina waan u qaybinaynaa plus baynu leenahay 5 ka daysan sheegin waxa ku raacsan x jibaarkiisu yahay 0 hal baynu ku daraynaa sidoo kalena waan u qaybinaynaa waxaan ku daraynaa constant oo ah c constant maxay oo ah c intaas markaan joogno waxaan leenahay u fiirso marka kani haddaan 2 iyo isku darno hal waa 3 haddaan isku darno 2 iyo halna waa 3 3da hoos kaga soo bixi doonta 3da kor asla baxaya soo marka kas maxaa kaga soo araya x ku jibaaran 3 1 iyo haddaan isku darno 1 kale waa 2 sidoo kale 1 iyo 1 isugu waa 2 2daas kore iyo 2 hoos kaga soo bixi doonta isla baxayaan halkaas marka maxaa kaga soo baxayo plus x square okay haddaan hal ku darno eber hal leeyahay haddaan eber ku darno hal leeyahay hal hooseeya ma qorayno hal jibaarna sidoo kale ma qorayno استراد مركز maxaa ka soo baxay plus
5x plus maxay 5x plus c na waa constant numberkii iskaga soo dar. jawaabta saxda marka waxa weeye x cubic plus x square plus 5x plus c plus 5x plus c. marka jawaabta saxda ahi ma b mise waa c? jawaabta saxda ahi waa c. b way waqtigan sax tahay laakiin sax ma ah. 5 kan waxa ka maqan x laakiin x ki waa ka saas awgeeda jawaabta saxda ahi waa xarafka c. halkaas aynu sidaas ku gooba gelinayna. waxaan ugu gudbaynaa marka next question waa su'aasha xigta oo ah su'aasha 12aad. the exact value of tan 3/4 qiimaha saxda ah ee tan 3/4 ayaa waxay noqonaysaa. u fiirso waxaan haysanaa tan 3/4 tan 3/4. okay intaan tan 3/4 ka shaqeyn horta halkaas ay noo joogtay angalkan oo 3/4 ah 3/4 ah. angalkan haddaynu u bedelno raadiyaan waa raadiyaan haddaan u bedelno degree wuxuu leeyahay 135 degree 135 degree. sanagu naaqay halkii by waa 180 degree 180 waxa qabanaysaa 4 marka 4 u qabanayna 45 weey 45 haddaan ku dhifano saddexna waxa weeye 135. su'aal marka 135 taasi waaxda dhacdaa banu leena waxay dhacdaa waaxda labaad sababtoo ah quadrantiska halkana waa 0 halkaasina waa 90 degree baa la socota halkaasi. marka halkana waa 180 135 marka meelahaas oo kale ay dhacdaa. ha dhacdo maxumo tangentiga muxuu ku yahay negative miyuu ku yahay waa waaxda labaad mise wuxuu ku yahay positive? waaxda labaad tangentigu wuxuu ku yahay negative. positive waxa ku noqonaya kaliya sin-ka. waxaan arsan karnaa waxaan dhigi jirnay kuna anaga ku fadhiisanayna all students take chemistry ama all students take calculus oo kale marka 135 reference angle ka muxuu noqonayaa 180 weey 100 ma reference angle san reference angle ka 135 oo helno 180 waxaan ka jirnaa 135 fahmaysa 180 ayaa waxaan ka jirnaa 135. marka haddaynu 180 degree aan ka jirno 135 degree maxaa soo baxaya waxaanu ku magacaabayno 45 degree 45 degree marka waa reference angle kii 180 angle kii saxda ah ma ahan oo 135 ka ah ma ah laakiin angle kii 135 ka ah qiimihiisa value-giisa qiimo lamida ay ku siinaysaa marka tangent la qaadato. laakiin calaamadda markasta iska wardiyo calaamadda angle kii hore asalka ah ayaa iska leh. sidaas awgeed macnaha waxa weeye tangent markaan dhahno tan 3/4 markaan dhahno waxa la macnaha anagoo dhahnay minus tan by/4 sababtoo 45 oo by/4. negative kan sababtan oo kale waxa weeye quadrant-kii weey ilaan by/4 kaliya daan qaadano 45 waa quadrant 1 na tangentigu wuxuu ku yahay positive. si marka aanu ilaaliyo calaamadii hore ayaa negative kaas halkaasi hore aan ku dhifanayna. soo marka tan by/4 sidaan ognahay waa 1 tan by/4 waa 1 maadaama ay tahay 1 waxa marka hore ku dhacaya minus kaas sidaas awgeed jawaabta saxda ahi waa -1. marka -1 jawaabta waa xarafka b mujadan xarafkaas b ayaa marka waxay noqonaysaa jawaabta saxda ah waa xarafka b oo ah -1. halkaas aynu ku dhaafno su'aashaas ina fahamtaan rajayna insha Allah taala waxaan fahminaa waan isku joognayo wad soo kol garay kartaa.